hay-adda Camud Foundation oo weli wada barnaamijka sanadlaha ee 2 milyan milis ee loogu gudmanayo dadka danyarta ee Somaliland ayaa gobolka Sanaag ka daafurtay in deeq raashin la gaarsiiyo kun qoys oo danyar oo gobolkaasi ku nool si bisha Ramadaan ay deeqda raashinka ay u isticmaalaan deegaanada Faraguul, Sincaro, Masle, Hulul, Godhile oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa hay-adda Camud Foundation deeqdaasi raashinka gaarsiisay oo ka koobnaa bariis, sonkor, saliid iyo timir taasi oo dadkaasi danyarta isticmaali doonaan raashinkaasi muddada lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Cabdiqani Maxamed Axmed oo wakiilka hay'adda Camud Foundation u qaabilsan gobolada bariga Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay hay'adda Camud Foundation maanta waxa ay joogtaa gobolka Sanaag oo ay ka daahfurayso barnaamijkii 2 milyan milis iyadoo ugu talagashay gobolka Sanaag kun qoys oo raashin ah oo ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan. Kunka qoys maanta waxa ugu horeysa aanu joognaa magaalada Faraguul iyo Sincaro oo 400 oo qoys aanu ka qaybinano. halkan hadda aan joogno waa magaalada Sincaro. waxa ay leeyihiin labada magaalo min 200 oo qoys oo raashin ah oo ay hay'adda Camud Foundation ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan. runtii xilligan adag haddana waxa soo gashay bishii barakaysaneed ee Ramadaan iyadoo dadku haddaba ay haysay xaalad adag oo abaar ah. hay'adda Camud Foundation waxay ka qayb qaadanaysaa barnaamijka Ramadaanta ee 2 milyan milis ayay u keentay raashinkan oo ka kooban bariis, sonkor, saliid iyo timir. waxaan rajaynaynaa qoys walba inuu ku filnaan doono haddii la haydmo bisha barakaysan ee Ramadaan. hay'adda Camud Foundation waxay sii wadi doontaa haddii la haydmo magaalooyinka kale ee gobolka Sanaag ka tirsan iyadoo gaarsiin doonta raashin la mid ah raashinkan haddii la haydmo. waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii walaalaha ee muslimiinta ah ee soo bixiyay raashinkan inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo. Mas'uuliyiinta iyo dadka deegaanadaasi hay'adda Camud Foundation ay deeqda raashinka gaarsiiyay ayaa si weyn hay'addaasi ugu mahadnaqay. annagoo ah dadweynaha ku nool magaalada Sincaro iyo waliba Faraguul khaasatan anagu aanu joogno Sincaro waxaana soo gaaray raashinkii ay noo waday ama ay noo keentay hay'adda Camud Foundation oo ka tirsan hay'adaha ka bixinaya raashinka ee samafalka ee soo gaarsiiyay gobolka Sanaag khaasatan tuulooyinka Sincaro iyo Faraguul. waxaa noo yimi raashin dhan 400 oo qoys Sincaro iyo Faraguul Camud Foundation wayna soo gaarsiisay raashinkii samafalka ahaa si fiican oo nabadgelyo ah buu ku fulay arrintaasi. waana aad iyo aadna uga mahad celinaynaa si wanaagsan oo nabadgelyo habsamiya ayaa hawshaas noogu dhammaatay waanuna ka guddoonnay oo ka tirsan labada tuulo waxay ka tirsan yihiin gobolka Sanaag degmada Garadag. waa halkan ku qaybinaya raashin ka kooban noocyadiisa kala duwan oo raashin qiimo badan ah. hay'adda Camud Foundation oo hay'ad khayriya ah waxaan uga mahadnaqaynaa raashinkan qiimaha badan leh ay ku soo beegtay xilligii ku habboonaa oo ay siisay dadkii u baahnaa nuglaa. aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waanu ku faraxsannahay markhaati baanu ka nahay inay raashinkaasi si sharaf leh oo karaamo leh oo gobonimo leh dadkaasina u qaybsadeen. khayraasiyo hay'adda Camud Foundation waxay 400 oo qoys raashinkoodii ayayna soo gaarsiisay Sincaro iyo Faraguulba. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. maanta waxaan joognaa tuulada la yiraahdo Masle oo ka mid ah gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Elafweyn. waxaa maanta lagu qaybinayaa raashin ka yimi Camud Foundation oo 2 milyan ah oo ka waday gobolka Sanaag. runtii waan uga mahadcelinaynaa gobolka Sanaag ahaan hawsha ka wado. waxaan insha Allah iyana maanta lagu sii qaybin doonaa oo qaybtu ka socon doontaa Galyaqa. waxa xigi doona meesha la yiraahdo Hulul. saas ay u socon doontaa ilaa iyo Garadag iyo Jiideeda. aad iyo aad baan intii lagu qaybiyay baan uga mahadcelinaynaa hay'adda Camud Foundation oo aad aragtaan raashinka 100 qoys ah ee halka hortayada ay yaala oo ay u keentay deegaankan Masle. waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo xilli runtii waqtigu adag yahay oo abaar adag jirto Ramadaanna ay soo gashay
dadkuna iska yar jilicsan yahay oo dee xoolihiina aan laga iibsan oo baahidu badan tahay ayay ku soo beegantay. hay'adda Amuud waxayna soo gaarsiisay 100 qoys raashinkood waxa weeyaan waa ku mahadsan yihiin annana waa ka guddoonay. deegaanku waa Masle halka waxaana ku keenay 100 reer raashinkood waanu ka guddoomanay waxaanuna uga mahad celinaynaa wixii keenay iyo wixii ku taakuleeyay. raashinkana wuxuu la soo kulmay waqtigii Ramadaan la kowsanaya insha Allah way ku afuri doonaan way ku suxuuran doonaan way ku soobi doonaan wixii bari laga bilaabo. hay'adda Amuud Foundation waanu ka haynaa xildhibaan ahaan haddaan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee Elfweyn.